dunida waxaa ku yaala magaalooyin badan oo leh taariikh qoto dheer, dhaqan soo jireen leh, iyo sidoo kaleeto horumar casri ah. London iyo New York waa laba ka mid ah magaalooyinka ugu caansan uguna saameynta badan adduunka, inkastoo ay labadooduba yihiin xarumo dhaqaale, mid dhaqan iyo mid siyaasadeed, haddana waxay leeyihiin farqi weyn oo u gaar ah. Haddaba muuqaalkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa isbarbardhigga labada magaalo ee New York iyo London. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaynu ku bilaabaynaa magaalada London. London waxaa la aasaasay qarnigii 1 ee miilaadiga, xilliga oo ay Roomaanku dhiseen magaalada London. Waxay soo martay xilliyo taariikhi ah oo muhiim ah, sida xilligii boqortooyadii Ingiriiska, dagaalkii labaad ee adduunka, iyo kacaankii warshadaha. Waa caasimadda boqortooyada Ingiriiska, hoyna u ah qasriga boqortooyada. Waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu faca weyn Yurub ee weli ah xarunta dhaqaale iyo midda dhaqanba. Waxaynu ku xiijinaynaa magaalada New York. Asalkii hore waxaa la oran jiray New Amsterdam, waxaana la aasaasay 1624. Waxaa Ingiriisku la wareegay 1664, iyadoo magaceedu uu ka dhigay New York. Waxay noqotay albaabka ay marto socdaalka Mareykanka, gaar ahaan xilligii u dhaxaysay 1892 ilaa 1954. Waa xarunta qaramada midoobay iyo UN-ka, iyo sidoo kaleeto magaalada ugu saameynta badan dhanka dhaqaalaha ee adduunka. Waxaynu fiirinaynaa dhanka juqraafiga iyo sidoo kaleeto dhanka cimilada. London waxay ku taalaa waqooyiga Yurub, waxayna leedahay cimilo qabow, roob badan, iyo jawi dhexdhexaad ah inta badan sanadka. New York waxay ku taalaa bariga Mareykanka, waxaana mara webiga loo yaqaano Hudson. Cimiladeedu waa mid kala duwan. Jiilaalka waa qabow oo baraf badan baa da'a, xagaagana aad ayay u kulushahay. Haddii aynu fiirino dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga, London waa xarunta dhaqaale ee ugu weyn Yurub, iyadoo leh suuqyada caalamiga sida London Stock. Waxay hoy u tahay shirkadaha waaweyn sida shirkadda loo soo gaabiyey HSBC, iyo sidoo kaleeto shirkado waaweyn oo caalami ah. Waxaa ku yaala xarumo maaliyadeed. Waa mid ka mid ah meelaha ugu dhaqaalaha badan qaaradda Yurub. Dhanka kale, New York waa xarunta dhaqaale ee adduunka, waxayna ku taalaa Wall Street. Waxay hoy u tahay bangiyada waaweyn sida bangiga loo soo gaabiyey JMC, iyo sidoo kaleeto Goldman Sachs. Waxaa sidoo kaleeto ku yaalo xarumo ganacsi oo caalami ah, One World Trade Center. Haddii aynu fiirino dhaqanka iyo farshaxanka, London waa magaalo caan ku ah mataxafyada sida British Museum iyo sidoo kaleeto National Gallery. Waxaa ku yaalo xarumaha fanka sida West End oo lagu dhigo riwaayadaha caalamiga ah. Waxay leedahay taariikh fac weyn sida Town of London iyo Big Ben. Dhanka kale, New York waa xarunta fanka iyo madadaalada, waxaana ku yaalo mataxafyo sida Metropolitan. Waa hoyga Broadway oo ah meesha ugu weyn ee riwaayadaha adduunka. Waxaa sidoo kaleeto ku yaalo Times Churches iyo Hollywood. Haddii aynu fiirino habnololeedka iyo dadka, London waa magaalo ay ku nool yihiin dad badan oo ka kala yimid caalamka oo dhan, taas oo ka dhigaysa mid aad u badan dadka ay ku nool yihiin, maadaama ay leedahay zaxmad aad u badan. Nolosheedu waa mid degan, inkastoo ay jiraan saacado zaxmad badan oo dadku ay isku soo baxaan meelaha lagu dhigo cabisyada. Dhanka kale, New York waa magaalo aad u firfircoon oo leh nolol 24 saacadoodba, yacni 24 saac dadku waa ay soo jeedaan. Dadkeedu waa kuwo shaqo badan, degdeg badan, oo buuq badan leh. Waxaa lagu tilmaamaa magaalada weligeed aan seexan, maadaama shaqo ay ka socoto habeen iyo maalinba. Haddii aynu fiirino macluumaad gaar u ah magaalo walba, London tirada dadka qiyaastii waa 9 milyan oo qof. Waxay leedahay in ka badan 170 matxaf oo lacag la'aan ah,
sidoo kaleeto waxay leedahay nidaam tareen dhulka hoostiisa mara oo la furay 1863 waana kii ugu horeeyey ee adduunka. waa xarunta madaxafyada ee waaweyn sida Royal Ascot. dhanka kale New York tirada dadka ku nool qiyaastii waa 8.5 milyan oo qof. waxaa ku yaala dhismaha ugu dheer ee Mareykanka Windward Trade Center. waxa ay leedahay subway-ka ugu weyn adduunka oo leh in ka badan 470 saldhig. waa meesha ay ku yaalaan sida xidigaha Hollywood-ka iyo sidoo kaleeto Times Square. gabagabadii iyo gunaanadkii muuqaalkeena, labada magaalo ee London iyo New York waxay leeyihiin astaamo gaar ah oo ka dhigayo kuwa soo jiidasho leh. London waxay ku faantaa taariikhdeeda faaca weyn, nidaamkeeda hufan, iyo sidoo kaleeto madaxafyada taariikhiga ah. New York waxay caan ku tahay firfircoonideeda dhaqaale ee xooggan iyo fursadaha ay siiso dadka doonayo inay horumar sameeyaan. mid kasta wuxuu leeyahay bilic iyo qurux gaar ah, waxaana qof walba ku xiran doorasha midka uu jecel yahay. haddii aad jeceshahay xasiloonida taariikhiga ah iyo sidoo kaleeto nidaam ka wanaagsan, London waa meeshaadii. haddii aad door bidayso nolol firfircoon, fursado badan leh, iyo sidoo kaleeto dhaqaalo fiican laga helayo, waxaad door bidaysaa magaalada New York. haddaba daawade, adigu midee ayaad doorbidi lahayd labadani magaalo? qaybta hoose ee kommentiyada inoogu reeb fikirkaadii. muuqaalkeena maanta intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. fadlan daawade, haddaad nagu cusub tahay nagu soo beer. haddaad hore noola joogtayna fadlan muuqaalka like saara oo la wadaag asxaabtaada. intaynu ku kulmi doonno muuqaalkan muuqaalkiisa kaleeto, waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo.